ehelada wiil Soomaali ah oo booliska dalka Jarmalka ay toogteen ayaa ku eedeeyay in boolisku ay ku fududaadeen dilka wiilkooda. Wiilka la dilay ayaa lagu magacaabay Cabdiqaadir Sandheere isla markaana la sheegay in boolisku ay ku fureen 16 xabadood, 9 xabadoodna ay si toos ah u haleeleen. Ehelada marxuum Sandheere ayaa sheegay in wiilkaasi dhawaanahan uu xanuunsanayay. Markii la tooganayay ayuu gacanta ku hayay midi iyadoo la sheegay in wax khasaare ah mididaasi uusan ku geysan. Sidii wax u dhaceen booliska arrimaha ay geysteen email ay kala tagnaa idin sharaxo horta walaalkii wuxuu ahaa nin maskaxdiisa iyo wixii maalmihii ugu dambeysay wax yar problem hurdo la'aan ku dhacdo maskaxdana xanuunay nin maskaxdiisa joogto markii wax dhacaysay marka walaalkii mididii wato markuu intii imaaday booliskii xaqii istaageen sida sharciyanna wadanka u degan waxay tahay booliska markii uu imaado oo qof xanuunsan ama wadi wato markuu arko waa inuu booliska tartiib ula hadlaa sharciga wadanku yaalo waa sida fiidiyoyada ka aragteen booliskii uu ku qeyliyay wiilkii walaalkii wuxuu isku dayay mididii xataa habka u hay midi yari Soomaaliyeed lagu jartay ahayd midi weyn oo dadka lagu dilay ma ahayn wuxuu isku dayay midid inuu dhinaciisa u jeediyo oo saana dhaho tilaabtii uu qaaday booliska hal xabay kor u rideen xabadii labaad lugtii ugu dhufteen 15 xabano isku daba xigtana way fureen ana ayaa qabsatay 3 wiig muddo oo kale hurdo la'aan ayaa hiisay wax dhib kale ma qabin waa nin diintiisa raacanayo oo shantiisa waqti ilaahayna dukanayo oo maalintii sabtigana tafsiir ay qaataan waxaana marqaat furaya aniga maayo mal qiyaamana ku maqaarto furaya inuu ninkaas nin ehel iimaan ah ehel diin ahay oo wadaadkeena sabti kasta ay tafsiir isla qaadanayeen shantiisa waqtina dilkan dhacay waxaan u arkaa inuu yahay dil qalad ah oo aan Jarmalka sharci ka ahayn in qof la dilo sababtoo ah ninkaaneet waxa loo dilay raasisnimo way 9 xabadood lagu dhuftay sharciga Jarmalkana ma dhigaayo waxaan leeyahay waa inaan Soomaaliya dhan meel aan kaga soo wada